kulanti wacan daawadayaal waa barnaamijkeeni akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Juba. barnaamijka maanta waxaan ku soo qaadan doonaa reer galbeedka ayaa u eg mar labaad ama mar saddexaad inay ku qaldamayaan siyaasadda Ruushka. intaanu barnaamijka guda galin fadlan noo faafi barnaamijka adigoo isla markaana sheer gareynaya barnaamijkeena. waad mahadsantahay walaal. aanu ku bilownay 12 bishan qaraxii Crimea kadib madaxweyne Putin ayaa TV-ga Ruushka u sheegay way jiraan kuwa doonaya inay ka fuliyaan wadankeena weeraro argagixiso ah, balse waxay jawaabtaan ka bixin noqon doontaa mid la mid ah mid argagixisada qofna yuusan shaki taaki gelin. taasi waxay ahayd goodin adag, laakiin dhagihii maqli lahaa ma ku yaalaan Ukraine iyo reer galbeedka oo ma isku diyaariyeen khatarta ka imaan karta goodiska Vladimir Putin. jawaabta su'aashaasi waa maya, waayo shacabka koonfurta magaalada Mykolaiv ee dalka Ukraine ayaa ku soo toosay aroornimadii Khamiista dhawaqa madaafiicda Ruushka iyo gambaleelada la yiriyo marka ay khatari jirto. Ruushka ayaa la beegsaday duqeymo aan hore looga baran magaalooyinka Ukraine. toddobada dal ee loo yaqaano G7-ka kuwaasoo kala ah Ingiriiska, Maraykanka, Kanada, Jabaan, Midowga Yurub ayaa shalay isugu yimid ka wada hadlidda xasaradaha caalamka. G7 iyo xulafadooda ayaa sheegay inay taageeri doonaan Ukraine inta ay doontaba ha qaadatay kadib duqeymihii Ruushka ay ka geysteen magaalooyinka Ukraine. hogaamiyaha NATO Jens Stoltenberg ayaa yiri duqeynta Ruushka waxay caddeyn u tahay tabaryari. waxa uu kale u sheegay in gaashaanbuurta NATO ay sii gudi doonto dhoolatuska nukliyeerka isbuuca dambe iyo hubeynta wadamada Ukraine. Jens Stoltenberg oo hadalkiisa sii wata ayaa yiri dhab ahaantii Ruushka waa looga adkaaday dagaalka sababtoo ah ma haystaan awood ay ugu babaacdhigaan ciidanka Ukraine ee ku sii durqaya goobaha Ruushka haysato. sidaa darteed waxay jawaab uga dhigeen inay si aan kala go' lahayn u duqeeyaan magaalooyinka Ukraine kuwaasoon wax dagaal ah ka socon. Ruushka ayaa sheegay in duqeyntan cusub ay jawaab u tahay qaraxii lagu beegsaday buundada Crimea ee isku xirta Russia iyo gobolka Crimea. dhanka kale Kiev ayaa sheegtay in Ruushka uu duqeeyay magaalooyin nabad ah oo wax ciidan joogin. wasiirka arrimaha dibadda ee Ruushka Sergey Lavrov ayaa sheegay in Ruushka uu diyaar u yahay wadahadal ay la yeeshaan reer galbeedka taasoo ku saabsan arrinta dagaalka Ukraine, balse weli ma aysan helin codsi dhab ah oo ku saabsan wadahadallo rasmi ah. Lavrov oo hadalkiisa sii wato ayaa yiri way iska caddeed in Maraykanka iyo reer galbeedku qayb ka yihiin dagaalkii Ukraine. ma ahayn keliya inay hubeynayaan Ukraine, balse waxay kaloo ka caawiyeen xagga sirdoonka militariga iyo satellaydyada. Lavrov ayaa sidoo kale yiri Moscow waxay diyaar u tahay inay kala hadasho xabad joojin wadamada Maraykanka iyo Turkiya hadday daacad ka tahay. dhanka kale wasiirka gaashaandhigga Ruushka ayaa boqday xero ay ku tababaranayeen ciidamo cusub oo la filayay in dhawaan loo geeyo jidda hore ee dagaalka. cabsi aad u weyn ayaa laga qabaa in Ruushka oo ka xanaaqsan taageerada reer galbeedka siiyeen Ukraine uu isticmaalo tactical nuclear, balse reer galbeedka ayaa meesha ka saaray inay isticmaali doonaan nuclear haddii Russia isticmaasho. ra-iisul wasaaraha dalka France Emmanuel Macron ayaa bartiisa Twitter-ka ku soo qoray inaysan doonayn dagaal kaloo adduunka ah. dhanka kale ra-iisul wasaaraha Estonia Kaja Kallas ayaa ka codsatay wadamada gaashaanbuurta NATO inay ka caawiyaan Ukraine hubka difaaca cirka, ayadoo isla markaana sheegtay inay diyaar u yihiin haddii loo baahdo gudbinta hubkaasi ay ka caawin doonaan maadaama labada wadan ay xad wadaagaan. G7 ayaa soo saartay war midaysan oo ay ku eedeynayaan duqeynta Ruushka ay ka geysatay magaalooyin badan oo ku yaala Ukraine kuwaasoo ay ku dhinteen shacab. si xoog leh ayaan u eedeynaynaa weeraradaasi wuxuushnimada ah ee Russia kula kacday shacabka Ukraine. weeraradani waxayna tusayeen in Ruushka ay isticmaalayso tactica ah in shacabka ay layso, taasoo ka soo horjeeda sharciyada caalamka. reer galbeedka oon weli cashar ka baran siyaasadda Ruushka ayaa u arkay in Ruushka ay ka tahay mala awaal isticmaalka tactical nuclear-ga. haddaba aan idiin sheego sababta aysan cashar weli uga baran siyaasadda Ruushka. midda koowaad, inta uusan dagaalka bilaaban Ruushka waxay Ukraine kaga digtay in aysan ku biirin gaashaanbuurta NATO ayagoo isla markaa u arkay inay khatar ku tahay amnigooda. reer galbeedka oo aan weli ogolaan ku biiridda Ukraine NATO ayaa ka shaqeeyey hubeynta iyo tababarada ciidamada Ukraine ayagoo markaasi filayay inaysan macquul ahayn in Ruushka ay soo weeraraan Ukraine. tan labaad, weerarkii kadib reer galbeedka ayaa mar labaad ku qaldamay siyaasadda Ruushka kadib markay cunaqabateyn saareen, taasoo ay filayeen inay wax u dhimayso dhaqaalaha Ruushka, balse ayaga ayay soo gaartay saamayntii ugu weyneed ee dhaqaalo oo ay keentay cunaqabateyntaasi. Ruushka digniintiisa ma ahan mid la dhaayarsan karo, waayo hore ayay u caddeeyeen inay ka go'an tahay difaacidda qarannimadooda, balse reer galbeedku ma yihiin kuwa ka bartay cashar dhacdooyinkii ugu dambeeyey. wakhtiga ayaa sheegi doona. weli waxaan ku wada jirnaa barnaamijkeennii akhbaaraadka caalamka iyo wargeyska maalinlaha Juba. ugu dambeyntii koonfurta Korea ayaa mar labaad isbuuc gudihiisa samaysay dhoolatus
taasoo ay ku tijaabinayso gantaalada tirada dheer kuwaasoo qaadi kara madaxa nukliyiga. sidoo kale waxay dul mariyeen diyaaradaha dagaalka xadka ay la leeyihiin koonfurta Kuuriya. Kim Jong-un oo goobjoog ka ahaa dhoolatuskaasi ayaa u ekaa mid ku qancay tijaabada hubkaasi cusub. koonfurta Kuuriya iyo Jabaan ayaa walaac ka qaba dhoolatuska joogtada ah ee waddanka waqooyiga Kuuriya, ayagoo isla markaana heegan geliyay ciidamadooda. intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa barnaamijkeena. waad ku mahadsantahay dhegeysigaada. fadlan noo share garee barnaamijka. haddaad ku cusub tahay channelkanena fadlan subscribe dheh oo gambaleelkana furo si aysan kuu dhaafin barnaamijyadeena. waad mahadsantahay walaal. aniga iyo bahda wargeyska maalinlaha Jubba waxaan idin leenahay is aragti dambe oo xiiso leh.